بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ودرس تفسير سلسلة فما يوكب الله يا آية صد يسيدة سورة المائدة wuxuu rabbi leeyahay wasaariqu ninkii tuuga ahaa iyo wasaariqatu naagtii tuugada ahayd faqtacuu aydiyahumaa gacnahooda jara gooya jazaa-an abaalmarin lagu abaalmarinhaya darteed u gooya bimaa wixii kasabaa ay kasbadeena shaqaysteen oo tuugada ah nakaalan ciqaab oo min allaahi alla xaggeeda ka ahaatay darteedna u gooye wallaahu allana casiizun waa mid awood badan xakiimun kuna xigmad badan subxaanahu wa tacaala waxaa inoo dambeysay aayadihii allah subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlayay nafta iyo qiimaheeda iyo dadka sida loo ilaaliyey iyo qolyihii fallaagada ahaayoo amniga dadka wax u dhimay naftooda iyo maalkooda axkaamtii laga soo dejiyey axkaamta qaadashadeeda si loo aada iyo aada loogu ihtimaam yeeshana waa kii laynoo soo sheegay dadka aayaadka alla diida oo axkaamta alla diida oo gaalada ah meesha ay ku dambeyn doonaan waxay noo sii wadaa marka suuraddu ilaalintii dadka naftooda iyo maashkooda la ilaalinayay iyo dadka amniga wax u dhima ama amni maal ha noqdo amni nafeed ha noqdee ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu ciqaabayo dadku si ay nabad oogu noolaadaan inta khayrka lahu inta shar kale in la ciqaabo wuxuu rabbi markaa leeyahay tuuga ninka iyo tuuga naagta aba gacmahooda jarjara lagaga abaalmarinaya darteed tuugada ay sameeyeen oo waxay kasbadeen ah iyaga oo lagu ciqaabayo ciqaab xag alle ka timid ilaahna subxaanahu wa tacaala waa midka awooda badan ee casiiska ah xakiimna ahoo xikmadiisa cizadiisa iyo awoodiisa aanu isticmaalin xikma la-aan kelimadan asaariq wasaariqa asaariqu wasaariqatu waxaan kaga khabarnay faqtacuu caadatan waxay ahayd khabarku inuusan faadaasu gelin oo waxa ka horeeya waxa ku dambeeya la isaga khabrin faadaasi macna shardi weeye oo macnaha ma celinayso inay khabar noqoto jumladaasu gacmahoodii jaraa la yidhi tuugii iyo tuugadii mufasiriintu meeshaas latiifo yar bay kasoo saareen saariqa meesha ninkii baa la horreysiiyey oo naagtii baa la dambeysiiyey waxay leeyihiin xikmada ku jirta waxaa weeye waxaa ninka loo horreysiiyey ragga tuugada ku badan kolkii zinada laga hadlayena wazaniyatu wazani baa la qofka dumarkaa la hormariyey iyaga waxaa la yidhi ku badan oo xataa mubaadarada marka si qolo walba meeshay ku badnayd baa lasoo horreysiiyey gacmahoodii jaraa la yidhi gacmaha haddii aayaddu ay sida u sheegtay noqon lahayd waxay ahayd gacmaha oo dhan la wada jaro gacantan waxaa la yidhahaa faraha laga bilaabo ilaa garabka laga gaadho laakiin meesha la goynayaa waa inta hore un waxa weeye waa caam oo khaas loola jeedo oo sunnada ina bartay meesha la goynaya inta horun baa la goynaya gacanta gacmahoodii jara baa la yidhi labadii oo la isku daray wey qofkii rag ahayd iyo qofkii dumarka ahayd baa markaa jamc laga dhigay waxaa la goynayaa labada gacmood mid unbaa qofka la goynayaa abaalmarin lagu abaalmarinayo dhibaatada ay sameeyeen darteed u gooya nakaal kelimada la yidhaaho waa ciqaabba hadda laga wadaa laakiin asalkeedii hore waxay ka timid nakila fulaanu bifulaanin tankiilan ay sanaca bihi saniican yaxdaru hayra qof markuu uu qofka ku sameeyo wax fool xun oo qofka kale ee arkay uu ka cararayo arrinkaasoo kale kolka lagu sameeyo yaa la yidhahda waa nakila bihi asalkiisuna wuxuu ka yimid baa laleeyahay alqayd shadiid wa xadiid lijaam oo xariga adag ee birta wax lagu xidho yaa nikli la yidhaha nikli bahalkan la yidhaaho afka afka laga geliyo faraska oo la yidhaaho lijaamka
afka laga geliya xakamaha birtiisana nikli baa la yidhaha marka waxay celinayaan mid xadhigu wuxuu celinayaa wixii lagu xidhay midka qaydka xakamuhuna wuxuu celinayaa wixii lagu xakameeyey sidaasoo kale marka meeshaasaa laga soo qaatay oo waa ciqaabka u noqonaya qofkii lagu sameeyey marka la maqlo siduu u galay dadkii kale ay ku cabsanayaan marka macnaheedu waxaa weelayidhi cibratan wa zajran min allahi ligayri lfaacil waa shay lagu cibro qaato lagagana joogsado qofka waxaa galay waxa lagu sameeyey ciqaabka marka la arko dadkii kale markaa cibro iyo zajri u noqonaya nakaalkaasaa la yidhaha dadkii kale ku celinaya meesha axkaam baa fuqahadu ay ku sheegaan iyo mufasiriintuba qofku marka la goynayo gacanta qofka gacanta la goynayo shuruud baa loo xidhaa maalka lagu goynayana shuruud buu leeyahay qofka waxaa la rabaa inuu yahay qof caaqil ah oo baaliq ah oo waxaan uu xaday aan isagu lahayn wixiisii aan ahayn wuxuu isagu ka yahay mas-uula aan ahayn wax uu shirka ku leeyahay ama shubha ku leeyahan aan ahayn baldehda waa inuu qof waa inuu baaliq yahay kow waa inuu caaqil yahay waa labo baaliq markii la yidhaha carruurtii waxay hadeen laguma goynaya gacmaha caaqilla qofkii aan wax garanaynin ama waa la wuxuu xaday waxba laguma goynayo waa inuusan maalkun kiisa ahayn isagu maalkiisii khaaliska ahaa oo meel uu ku arkay oo qof kale ka haystay hadduu arko soo xado maxaan lama goynayo waa inuusan mas-uul ka ahayn qofku shayga uu mas-uulka ka yahay hadduu qaado miyuu ka xad isagiiba haystay sooma isticmaalkiisi baa loo qabsan mooyo tuuga maaha de si kalea loogu qabsan oo ciqaabo u leeyahay tuuga ma aho gacan laguma goynayo waa inuusan ka ahayn anlaa yakuuna caleyhi walaaya waa inuusan shirka ku ahayn wax xoolou qaar leeyahay yuu wax ka xaday haddii xataa wixiisi wax ka badan oo xaday shufuu ku leeyahay oo gacanta lama goynaye wixii uun ziyaadan baa loo qabsan si kalea lagu qabsan mooyeen gacantii lama goynayo xoolaha uu xadayayo waa inay ku jiraan waxa la yidhaha xirz almithli yani xoolahana waa inay yihiin xoolo ilaashan oo markaa la xaday wax meelaha joogo laga soo qaaday hadduu yahay qofkii tuug maaha hal cidla joogtuu meel ka arkay uu iska watay lacag meel taallu arkay wuu qaatay wax saasoo kaleeta waa in xirzi mithli ku jiro xirzi mithli waxaa la yidhaha shaygan la xaday shaygan noociisa meeshii lagu ilaalin jiray waa inuu shayganu yaalay ama uu joogay hadduu shay dayacan ahaa dabcan qofkii waa loo qabsan laakiin tuug lama odhan karo oo tuugadu waa inuu qofku shay ilaashan u xado weeyaan gacmaha hal la gooyaa la yidhi gacmihii haddii uu qofkii uu xaday hal gacan baa la goynayaa marka meesha hore inta hore ee dhuubka ahna laga goynaya inta hore dhuubka inta lileeshada la yidhaha yaa la goynayaa waxaa suuragal inaad tiraha aada buu u adag yahay yani xoolaha waxaynu nidhi waa inay xirzi mitli ku jiraan waana inayna ka yaraanin rubcu dinaar ama 2 dirham oo waqtigii nabiga qiimihiisii ah yani shay qiimo leh waa inuu yahay nisaabka way gaarsiisan yahay nisaab sariqa waa thuluth dinar way dinar saddex meel loo dhigay meeshii wey ama waa 3 dirham oo qiimaha ama shaygii qiimihiisa ilaha shaygaas qiimihiisa leh waxaa tira asrayna israab adaga aad u adaga ma adko waa maxalkiisii weeye waa meeshiisii weeye allah waa aziiz wa hakiim kelimadaas aziiz iyo hakiim quraanka inta badan way israacaan maxaa yeelay cizadu waa awood iyo qalaba xikmadu marka waxay keenaysaa ilaah awoodiisa inuusan u isticmaalaynin xikma la'aan shay walba oo awoodiisa intuu isticmaalo meel dhigay meeshaas waa meesha saxda ah hal soo wariya nin baa quraanka ku aqriyay nin reer miyo luqada carabiga aad u yaqaan carabtu way fahmayeen luqada quraanki buu marka akhriyay aayada markuu marayso quraanka iska akhrinaya yunakala min allah wallahu ghafurur rahim buu yiri dinkii rabiga wuxuu hadalkani yaa iska leh hadalkan markaasuu yiri hadalka ilaahay waa isu qaban weeyay wuxuu baahda ku celi markuu ku celiyay iyo arkay qaariga inuu khaldan yahay markaasaan idhi buu yiri aziizun hakiim
ها كل كاسو نقول كراو بيجي هذا الكي عليه maxaad ku garatay baan idhi buu inay ku noqon karin xursaabo intuu ciqaaba haddana qafuur raxim loo odhan karaa qof wax ciqaabay axad wax ciqaabaya raxma walmaqfira iyo ciqaab isku meel ma geli karaan laakiin ciza iyo xikma isku meel geli karaan qofkii inuu awoodiisa isticmaalo laakiin uu xikmad isticmaalo markaas aan odhan karaa hadalkii alle marka waxay u garan bisaliiqiyatihin bay hadalka maraamigiisa iyo si isu haysto iyo isu marka ma adko oo ha odhanin maxaa yeelay amniga qofka iyo kamaalku way isku xidhayeen waxaa dabiici oo la yaqaanaa tuugu markuu meel imanayo kolka hore dadka meesha joogu dilaa maxaa yeelay yani in uuba isleeyahay ma dili kartid mooyeen hadduu isleeyahay qofkan xooluhu kaa celinaya dili la karo kolka hore isagiibuu dilaya kadib uu qaadanaya hadda ka hor baa nin baa iga sheekeeyey guri baan deganayn buuri nin baana biili jiray buuri oo hanti lahaa intanada kalena gurigaan la deganayn isagaa shaqayn jiray lacag baa meesha u tiilay buuri waxaan intanadii marka meesha joogta fuqarada waxaan ku aansanay buuri in aan ninka lacagta ka xadno seenu xadnaa baan isniri buuri waxaa soo baxday buuri inaan dilla mooyeen inaanan xadi karin markaasaan niri buuri haddaba aan dillo hal nin baa yidhi buuri maya ma dilayno saasaan naga baqti buuri macnaha tuugu diyaar wuxuu u yahay in uu wax dilo yuu diyaar u yahay si mida labaad maalku sidiisaba wuxuu ka mid yahay arrimaha shanta oo daruuriyaadka ah oo la ilaaliyay buu ka mid yahay nafta iyo maalka iyo isku meel baa la dhigay diinka isku meel baa la dhigay saa darteed inuu sheegu yahay inuu weyn yahay mar hadduu qofkii soo dhaqaaqayna waxada uu soo dhaqaaqay inuu rubuc diinaar xado rubuc diinaar inuu xado iyo inuu 1 milyan xado isku niyo buu ku yimid sidaa darteed ma aha ilaahi abuuray baa u arkay inay sidaasi tahay inay tahay sidii munaasabka ahayd waxaana loogu talagalay qaabta waxa saal loogu adkeeyay tugdamo inaan la arag wasaariqu tuugi iyo wasaariqatu tuugadii gabadha ahayd faqta'u gooya aydiyahuma gacnahooda labadooda gacnahooda gooya jazaan abaalmarin bimaa wixii kasaba ay kasbadeen ay sameeyeen lagu abaalmarinayo nakaalan liajli nikaal ciqaab darteed oo min allahi xagga alla ka ahaatay waa ciqaab adag oo qofkii arkay uusan weligii samaynaynin waxa qofkaasi uu sameeyey wallahu allana casiizun waa mid qaalib awood badan xakiimun kuna xikmad badan oo awoodiisaan marnaba u isticmaalaynin meelaan xikmo ahayn wasala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ودرس التفسير كسلسلة فما يوكب الله ونيا آيات صودا يسيدة سورة المائدة wuxuu rabbi leeyahay wasaariqu ninkii tuuga ahaa iyo wasaariqatu naagtii tuugada ahayd faqtacuu aydiyahumaa gacnahooda jara gooya jazaa-an abaalmarin lagu abaalmarinhaya darteed u gooya bimaa wixii kasabaa ay kasbadeen ay shaqaysteen oo tuugada ah nakaalan ciqaab oo min allaahi alla xaggeeda ka ahaatay darteedna u gooye wallaahu allana casiizun waa mid awood badan xakiimun kuna xigmad badan subxaanahu wa tacaala waxaa inoo dambeysay aayadihii allah subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlayay nafta iyo qiimaheeda iyo dadka sida loo ilaaliyey iyo qolyihii fallaagada ahaayoo amniga dadka wax u dhimay naftooda iyo maalkooda axkaamtii laga soo dejiyey axkaamta qaadashadeeda si loo aada iyo aada loogu ihtimaam yeeshana waa kii laynoo soo sheegay dadka aayaadka alla diida oo axkaamta alla diida oo gaalada ah meesha ay ku dambeyn doonaan waxay noo sii wadaa marka suuraddu ilaalintii dadka naftooda iyo maashkooda la ilaalinayay iyo dadka amniga wax u dhima ama amni maal ha noqdo amni nafeed ha noqdee ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu ciqaabayo dadku si ay nabad oogu noolaadaan inta khayrka lahu inta shar kale in la ciqaabo
wuxuu rabbi markaa leeyahay tuuga ninka iyo tuuga naagta aba gacmahooda jarjara lagaga abaalmarinaya darteed tuugada ay sameeyeen oo waxay kasbadeen ah, iyaga oo lagu ciqaabayo ciqaab xag alle ka timid. ilaahna subxaanahu wa tacaala waa midka awooda badan ee casiiska ah, xakiimna ahoo xikmadiisa cizadiisa iyo awoodiisa aanu isticmaalin xikma la-aan. kelimadan asaariq wasaariqa, asaariqu wasaariqatu waxaan kaga khabarnay faqtacu. caadatan waxay ahayd khabarku inuusan faadaasu gelin oo waxa ka horeeya waxa ku dambeeya la isaga khabrin. faadaasi macna shardi weeye oo macnaha ma celinayso inay khabar noqoto jumladaasu. gacmahoodii jaraa la yidhi tuugii iyo tuugadii. mufasiriintu meeshaas latiifo yar bay kasoo saareen. saariqa meesha ninkii baa la horreysiiyey oo naagtii baa la dambeysiiyey. waxay leeyihiin xikmada ku jirta waxaa weeye waxaa ninka loo horreysiiyey ragga tuugada ku badan. kolkii zinada laga hadlayena wazaniyatu wazani baa la qofka dumarkaa la hormariyey, iyaga waxaa la yidhi ku badan oo xataa mubaadarada marka si qolo walba meeshay ku badnayd baa lasoo horreysiiyey. gacmahoodii jaraa la yidhi. gacmaha haddii aayaddu ay sida u sheegtay noqon lahayd waxay ahayd gacmaha oo dhan la wada jaro. gacantan waxaa la yidhahaa faraha laga bilaabo ilaa garabka laga gaadho, laakiin meesha la goonayaa waa inta hore un. waxaa weeye waa caam